asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa inoo socda kooraskeeni ku saabsanaa waxqabadka iyadoo la isticmaalaya applicationka Todoist. cashirkeenii hore waxyaaba badan baan soo aragnay. waxaan abuurnay 2 project oo mid shaqo iyo mid family ah. hal project kale asagana waxaan ku daraynaa la dhaho waxbarasho. isagana kalarka waxaan siin doonaa grape boardna ka dhigan. marka hadda waxaan galaynaa qaybta tii u horeysay shaqada ah. marka shaqada anaga marka waxaan isticmaalnay board. marka board isticmaasho wuxuu ku weydiinaa boardkii inaad marxaladihii kala duwan aad u abuurto. laakiin markaad joogtid taskiska liiska ah, tusaale imika family maxaan u sameynay mid liisa cashirkeena hore aragtay. so asaga taskiska unba hore ka bilaabaysa, uma baahnid inaad sameysid marxaladaha. marka kan marxalada waxaan dhahaynaa fikradaha shaqo. waxaan qoon tusaale imika waxaan sameynaa qof shaqaalaha oo ka shaqeeya xafiiska suuqgeynta ee company. so qofka wuxuu leeyahay shaqooyin asaga loo dir uu ka fikirayo oo ku horumarinayo marketingka. kadib fikradaha markii lala qaato waxay noqonaysaa shaqooyin socda. kadib marka waxay noqonaysaa shaqooyinkii socday waxaan u kala qaybinaa qaar dhamaaday oo lagu guuleystay iyo qaar aan dhamaanin oo fail garoobay ama wax iska bedeleen oo socon waayay. marka sectionka aad baan oranaynaa. haddana section kale waxaan ku daraynaa shaqooyinka socda. marka shaqada hadday fikrada soo dhaafto waxay imaanaysaa inay shaqo socoto noqoto. shaqooyinka ay dhamaaday iyo shaqooyinka aan dhamaan. afarta qayb baan u kala qaybinaynaa. marka hadda waxaan doonayaa boardka inaan boardka fahamtaan siduu boardka u shaqeynayo. marka hal shaqo imika waxaan gelinayaa tusaale ahaan waxaad tidhaahaa sameey abaalmarino si aad macaamiil cusub u hesho. waxaa kaloo ku darinaa duub muuqaal xayeysiis ah la xidhiidh shirkadaha daabacadda. waxaan doonayaa marka qofka marketingka shaqooyinku qabanaya inaan idinku fahamsiiyo dhowr shaqo. marka hadda 3 shaqo sameeysto qofkan wuxuu doonayaa marka inuu ka shaqeeyo. so 3 shaqo maamulkii uu la tagay waxaa lagu yiri abaalmarinta dib inoogu dhig, laakiinse 2 shaqo kala dhaqaaji. so marka waxaa sameyn doontaa marka inaad xaggan timaado aad soo jiido oo aad shaqooyinka socda ku bedesho xaggan. so hadda 2 shaqo ku socota. 2 shaqo marka waa ka shaqeynaysaa. waxaad sameyn kartaa shaqooyinka ayagoo socda inaad sab shaqo u sii sameyso. waan wax dhici karaa because shaqada markaa qabanayso waa inaad sii kala jijibisaan projectiga si uu kugu fududaado. so click baad siinaysaa. waxaa u sameyn kartaa subtasks, waxaa u sameyn kartaa schedule. so waxaan oranaynaa deadlinekiisa wuxuu noqonayaa kan shaqadan xilliga la qabanayo aan ka wadaa inaan shaqadan brito la bilowno. so waxaan ku darayaa subtask oo ah diyaari teamkii matali lahaa xayeysiiska. okay xabad kale waxaa ku dartaa qor scriptiga ama qaabka xayeysiisku noqonayo iyo waxyaabaha lagu hadlayo. marka kuwan baan haddana usii sameyn karnaa subtask oo aan usii hoos geli karnaa tasks kusii hoos jiro kuwa. subtaskiga waxaan ka dhigi karnaa haddana subtask kala sii leh. marka mar walba wax aad qabanayso shaqo waa in shaqadaadu ay noqon kartaa shaqo la sii jijibin kara. because the more aad shaqada sii jijibiso 2 option baa kaaga soo baxaya. ta koowaad waxaa weeye in shaqadaadii ay noqoto wax la manage gareyn karo fudud. sidoo kalena adigu aad happy ku noqoto ama dhiirigelin ka sii qaado markaa shaqooyin badan aad dhameyso. tusaale imika hadda teamka diyaari baa ii qoran. haddii aan teamka diyaari bis ku daayo iyo haddii aan ka dhigo inaan 4 shaqo usii jijibiyaan dhaho raadi. tusaale waxaan dhahay imika raadi dadka majaajilistayaashka ah. kadib haddana waxaan dhihi karaa la fadhiiso oo la kulan. so markaan saa u badiyo shaqadii halkii taaski marka 4 ka dhigo 4ta waxaa laga yaabaa inaan 3 ka mid qabto. so hadhow waxaan dareemayaa farxad ama inaan wax qabtay oo shaqadii ay ka socoto. laakiin haddii hal taaski weyn oo dhagax ah meel dhigo oo aan ku fikir dhagaxa inaan hal mar wada qabto ama hal mar aan jabiyo waxaa laga yaabaa inaan ku caajisaamay waqti igu qaadato. so laakiin haddii aan maanta shaqadii 4 ka dhigo
afarta mid qabto maanta haddana mid kale galabta qabto haddana mid kale caawa qabto waxaan dareemaya aniga inaan nahay qof wax qabad leh oo shaqadiisa ee socoto happy baan ku noqonayaa xitaa maamulkayga waxaan u gudbin karaa report ah inaan shaqooyinka noocaas qabtay iyo laftirkooda waxaa laga yaabaa inay shaqadeeda ku farxaan marka mar walba aad shaqad diyaarsanayso waa inaad shaqada usii jijibin kartaa subtasks yaryar oo hadhow kuu fududaanaya marka tan waxaan u sameyn doonaa schedule waxaan oranayaa maalinta 9 bisha inaan la hadlo kan waxaan oranayaa 9 bisha waqti waxaan ku darayaa time baan u sameynayaa waxaan oranayaa 4pm 4 galabnimo inaan meetingka yeesho safe baan oranayaa so hadda workshopkii shaqada xabadda 2 task baa kusii dhex jira marka xagga eegto waxaan doonayaa marka mid uun inaan tusaalaha ku sameynayo dhanba sameyn karno kuwaana sidaas la mid waxay yeelan karaan subtasks haddana subtasks kale si yeelan doonaan schedule bay yeelanayaan meetings bay yeelanayaan so sky is the limit shaqadaada ku sii hormarin karto marka shaqadeedii way ii dhaqaaqday britol meeting baa leeyahay tusaalahan tan oo ii dhamaatayba xabadaana way socon weyday oo waa liiga diiday ma dhamaanin ayada xaggaas bay galaysaa so marka inta xaggan eega mikaano shaqaale ah subax walba markaan shaqada soo galo waxaan arki karaa howlaha ii socda waxyaabaha aan ii soconin waxyaabaha iga dhamaaday waxyaabaha aan iga dhamaanay iga istaagay waxyaabaha ii balansanay britol aan qaban doono so waa complete work qofka soo sida u qorsheysta cid ka daba hadli karta malaha marka insha Allah qaybta kale family-ga waxbarashada cashirka kan ku xigan ka hadli doonaa haduu la yiraahdo aad baa u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.